dowladda Sacuudiga ayaa dib u furtay xarameynka kadib markii halkaasi ay ka socdeen hore lagu buufinaya xaramka iyo masjidka Nabiga ee ku yaala Madiina si looga hortago caabuqa corona sida uu ku waramay Sheekh Cabdiraxmaan Al-Sudaysi imaamka Kacbada barakeysan oo wareysi siinay telefishinka dowladda Al-Akhbaariya. Sheekh Cabdiraxmaan Sudaysi ayaa waxa uu yiri amarkan waxa uu ahaa mid si kooban loogu xiray albaabada xarameynka barakeysan iyo masjidka Nabiga ee Madiina waxaana looga gal lahaa arrimaha caamka ee muslimiinta iyo in laga shaqeeyo caafimaad qabka dadka ku cibaadeysanaya Kacbada. Waxa uu sheegay in amarkan uu ka soo baxay boqor Salmaanka dalka Sacuudiga iyo wasaaradda awqaafta arrimaha diinta ee dalkaasi. المسجد الحرام والمسجد النبوي بعد أداء صلاة العشاء وفتحه قبل صلاة الفجر ليكون هناك فرصة للتعقيم والتطهير. sidoo kale Sheekh Cabdiraxmaan Al-Sudaysi imaamka Kacbada ayaa sheegay in la xiray albaabada Kacbada iyo masjidka Nabiga oo ay ka socotay buufinta intii u dhaxaysay salaada cisho ilaa salaada subax. ma kala cadda in muslimiinta loo ogolaaday inay ku soo cumreystaan halkaasi ama in kale. Sacuudiga ayaa dhawaan muslimiinta dalka dibadda ka mamnuucay cumrada xilli ay jirtay cabsi laga qabo corona go'aankaas oo sidoo kale saameeyay shacabka Sacuudiga kadib markii la xiray xarameynka.